Somali Cartoon. بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن walaalyaal ku soo dhawaada sheekada aan maanta idin wado oo ah mid xiiso leh waa walaashi Faadma Cabdulqaadir sheekada maanta waxay ku bilaabanaysaa sida tan Maxamed waxa uu ahaa biyoole magaalada ku dhex gadi jiray biyaha dadkoo dhan waxay jeclaayeen biyaha nadiifka ah oo gado oo ku jira ashuunkiisa iyo carafta ka soo baxaysa waxa keenay in ay dadku jeclaadaan ayaa ah biyihiisa nadaafadda wanaagsan maalin maalmaha kamid ah waxa maqlay amiirka magaalada maamula ninka biyaha nadiifka ah iibinaya mid kamid ah golihiisa wasiirada ayuu u diray in uu u keeno ninkaas laga sheegayo magaalada waxa uu ku dhahay wasiirkii tagoo ii keen Maxamedka biyoolaha ah wasiirkii waa uu baxay si uu u keeno Maxamed biyoole waxa uu ka raadiyay magaalada iyo wado kasta ugu dambeyntii waa uu helay waxa loo keenay biyoolihii amiirka magaalada amiirkii waxa uu dhahay Maxamedow maanta laga bilaabo shaqadaada waa halkan waxaad ka shaqaynaysaa howlka aan joogo oo dadka iimaanaya ayaa biisiinaysaa magaalada in aad biyo ku gadid maanta ayaa kuugu dambaysa waxaad fariisanaysaa markaad dhamayso waraabinta dadka agteeda oo waxaad iiga sheekaynaysaa waxaad ku caanbaxday iyo sababta keentay in ay dadku ku jeclaadaan oo magaalada oo dhan biyaha ka jeclaadaan Maxamed waxa uu dhahay waan maqlay hadalkaaga amiir waana samaynayaa Maxamed waxa uu ku laabtay gurigiisa oo xaaskiisa ay joogto waxaana uu sheegay in maanta laga bilaabo uu ka shaqayn doono xafiiska amiirka magaalada haysta isagoo ugu bishaareynaya xaaskiisa shaqada uu soo helay maalintii koowaad Maxamed waa uu soo shaqo tagay waxa uu soo xirtay dharkii ugu qurxanaa ee uu yaalay gurigiisa waxa uu si fiican u soo dhaqay ashuunkiisa waana uu soo carfiyay waxa uu soo galay xafiiska amiirka oo ay buuxaan dad badan waxa uu bilaabay waraabinta dadka joogay xafiiska amiirka markii uu dhameeyay waraabinta waxa uu fadhiistay amiirka agtiisa si uu uga sheekeeyo sheekooyin iyo waxyaabo qosol ah maalintii marka ay dhamaatay waxa uu qaatay mushaharkiisa wuxuuna aaday gurigiisa daawade maanta intaas ayaan ku keenaynaa qaybta koowaad ee sheekada Maxamed Biyoole la soco qaybta xigta hadii alla idmo